بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku ama yeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah woofiyo, inta baahan Allah deeqoynta bogta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad, khabar aad u wanaagsan, diyaarado F-16 ee Soomaaliya la keenay, taageero xoog leh oo soo gaartay dalka, kelmadan ka oranaya. qodobka labaad, foolxumadii ka dhacday baarlamaanka, iyadana kelmadan ka oranaya. waxaa wax lagu farxa ah Sacuudiga, Qatar iyo Turkigu inay isku bahaysteen kuna heshiiyeen Soomaaliya in la difaaco. arrintaasi waa arrin absolutely war farxad leh. waxaa Soomaaliya shalay waxaan sii daayay clip aan leeyahay daroomo hawada heehaabaha la sii daayo hala fasaxo. waxaas qaar baa dad baa ka qeyliyo yiri ma waxa leedahay daroon ha lagu weeraro. anigu cidna hala weeraro ma dhihin, laakiin hawada hala ilaaliyaan. xalay markaan clipka sii daynayay wax yar iyadoo weli uusan hawada soo gelin baan ogaaday in diyaaradihii F-16 ay Muqdisho fadhiyaan. laakiin waa sii daayay, waa iska daayay. khabarka waxaan geliyay Twitterka. dad badan baa meesha ka buuqayay oo qaarkood ay lahaayeen ma dhici karto, been weeye. 3 waa la hubaa F-16, 2 diyaaradood oo kalena way la socdeen. 5 diyaaradood xalay bay ka degeen Soomaaliya. diyaaradda weyn oo hadda aad uga jeedaan picture-ka waxay ka soo duushay saldhigga Tamim, Amir Tamim, saldhig base ay ku leedahay Qatar, xero military ay leedahay bay ka soo kacday oo la yiraahdo Amir Tamim. waxayna hadda ka degtay xoogaa ka hor sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Turkigu Muqdisho. diyaaradahaas waaweyn oo global masterka ah oo xamuulka ah oo logisticska ah, diyaaradahaas oo bariyahan oo dhan kuwa Turkida iyo kuwa Qatar oo ka degayay Muqdisho ka degayay, waxay wadaan qalabkii iyo agabkii diyaaradaha F-16 ay ku rangarayn lahaayeen. waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa qeyliyay mid la yiraahdo Rashid Cabdi. Rashid Cabdi wuxuu yiri alert Turkiga ba escalation wada. isagoo waa jaajuus Yahuudda u shaqeeya. cidda escalationka wada oo weerarka ah oo ku soo xadgudubtay dal aysan lahayn waa Israa'iil ee maha Soomaaliya. Soomaaliya xaq bay u leedahay Raas Kamboni, Raas Casayr, Lawyacado inta u dhaxaysa cirkeeda, badeeda iyo hawadeeda iyo dhulkeedaba inay ilaashato. xaq bay u leedahay. waa waxa la yiraahdo madax banaani iyo sovereignty. qarannimada in la ilaashado ceeb maaha, waa sharciga adduunka oo dhan. wadamada adduunka oo dhan diyaaradaha ay gataan, kuwa ay samaystaan iyo kuwa ay soo kireystaanba waxay ugu talagaleen inay ku difaacdaan intaa. waxaan intaa ahayna Soomaaliya ma samayn. waxaa kaloo kaa khaldan Somaliland wadan la yiraahdaa ma jiro, ee waxaa jira Soomaaliya wadan la yiraahdo. caalamka waxaa laga yaqaan dal Soomaaliya la yiraahdo. madax banaanidiisa iyo qarannimadiisa waxaa ku soo xadgudbay Israa'iil iyo Imaaraad oo edab darro ku dhex joogtay. haddii marka la iska dhacsho adiga iyo inta la midka ah oo ku nool Xasan dhibaatooyinku geystay ka mid tahay inuu ku keenay adigoo dambiile ah oo xukuman oo 5 sano ku xukuman inuu xamar ku keenay aanna lagu xirin. qaladaadka uu qarannimada ka galay ka mid tahay, laakiin aad gadaal isagii ka cuntay oo uu gadaal ka ogaaday wax walba uu ku khilaafay adoo sahan research ahaa. oo adigii Matt Bryden oo jawaasiis ah oo Soomaaliya horay hanti documento ay leedahay inta xadeen iibsaday oo laydinku helay dambi, baxsaday, cararay oo diiday inaad timaadaan maxkamadiin inuu idin soo celiyo khalad bay. ninkaasi buuqa uu kiciyay iyo qaylada uu kiciyay iyo qayla dhaanta uu diray waxay ku tusaysaa Soomaaliya Ilaahay markastoo ay xaaladdu ku xumaataba meel buu u furaa. Israa'iil faraj bay ahayd, Soomaaliya alla u furay. 3 wadan waxay iska kaashanayaan dhaqaalaha ay u baahan tahay ciidamadeen in lagu dhiso. waxaa aad u mahadsan Turkiga oo runtii iyo 2 wadan oo kaleba. waxaa kaloo aad u mahadsan Eritrea oo ka dambeysay inay ku qanciso Sacuudiga Soomaaliya in loo gurmado. runtii wadamada 4 ahi
waxay go-aan ku gaareen soomaaliya in la difaaco waxaa ka mid ahaa su-aalihii ay dadku rays garaynayeen F-16 american baale americana maalin walba idin caayaa oo yidhaahdaa waa garbage see ugu ogolaan karaa Trump la ogolaansho la-aantiisana lama geyn karo warka waxba kama jiraan waxaan ogaadnay baaritaan ku ogaanay turkigu full license bay qaataan oo ku iibsadaan diyaaradaha markay iibsadaanna gebi ahaanba modification bay ku sameeyaan waxay ka saaraan kill switch iyo GPS iyo midna male kulli waa ka saareen local software bay ku rangaraysaa waxay qaadaa local missiles waa kulli waxay ku samaystaan iyagaa iskale meeshay rabaan bay geyn karaan cidday rabaan soomaaliyana waxay la saxiixdeen defense contract saddexdaa wadan oo kalena way la shaqaynayaan yaa wadaya su-aalahay ka mid ahayd ilaa 1,000 nin oo soomaaliya oo haddeerba ku wada dalka turkiga diyaaradaha ku tababarta oo daroonada iyo diyaaradaha fighter jetka ah intaba ku tababarta ku takhasusay ayaa soomaali loo tababaray 5 sano 6 sano ka hor waana joogaan kun bay ku dhawaada kahor waxaa ka cabatay Kenya iyo Ethiopia waxay ka geeyeen dacwo ka geeyeen waxaa jiroo kale al-shabaab oo ka cararay gobolada shabeellada dhexe xawaadley iyo hiiraan meelo badan oo ay kaga jireen ka cararay oo dibad hirshabelle iskaga yaacay markay maqleen diyaaradihii yimi iyo markii turkigu dagaalkii soo galay turkigu wuxuu kaloo rabaa inuu satellite halkaa ka diro waxaa kaloo ka go-an inuu gaaska iyo oilka soo saaro soomaaliya meel fiican bay ku jihaysatay wadamadaas waa u mahad celinaynaa on behalf of Somali community ama Somali nation dadkaas soomaalida la yiraahdo waa idin mahad celinayaa a friend in need is friend indeed baa la yiri qofka saaxiibka ah runta waxa la ogaadaa marka u baahato markay xaaladdu caadi tahay qof walba waa saaxiibka laakiin markay xaaladdu adkaato baa la kala baxaa qofka runta ana la ogaadaa saaxiibka kula ah wadamadaas aad bay u mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa baarlamaanka waxa ka dhacaya xasanow maanta oo kale dabaaldeg bay ahayd farxad bay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay faraxsan tahay ahayd waxa ay la kowsadeen oo waagu la bariyay foolxumo iimaan la'aanta kursiga dhig jasiira shirka ka socda iyo fadeexada ka dhacday baarlamaanka gudihiisa oo wasiiradaadii iyo xildhibaanadii isku dhex feerayaan fartaag baa uu feer ku dhuftay Firimbi xasan Firimbi saacadiyana Firimbigii ay keentaa lagu yeeriyay mawjada baarlamaankii dad madow baa xukuma oo maskaxda iyo aqoonta intaba ka madow garasho aan lahayn waxay fahmaan iyo waxay maqlaan ba ay tahay maxaan cunaa waxaasaa ka dhashay maxaa yeelay ansax weeye buu iska dhahayaa waa waxaan waxba xurmo aan lahayn oo aan isxurmaynayn isagu ummadana xushmo lahayn markuu Trump arko waxaas muxuu oranayaa shalay buu lahaa madaxweyne ma laha hadda wuxuu ku darayaa baarlamaanna male dalba ma uu yiri wadan jiraba ma caalamka maxaa noogu fadeexan wadankii raba inuu ku caawiyo waxa markuu arko xasan muxuu oranayaa xasan duruufuhu ku bedelin shalay aduu ahaa ninkii lahaa farmaajo dastuurka dhig adigu malihide waxa aad dabka ku qabatay waa dastuurkii adiga lagu doortay macnaheeduna waxay tahay kursigaagii baa dab ku qabatay saasaa ku tiri isaga bal dib isu dhageyso intaas ha kugu filnaato walaalo ummadda ka xishood is ixtiraam dadkana ixtiraam dhig dalku waa ka kacayaa meeshe adigu ha burburin dalka gudaha midayntiisa adaa laga rabaa ma wada ahaan kartid 10 qof oo isku dhex jira aljazeerana ma joogi kartid baarlamaankana ma joogi kartid ummadana caalamkana lama jaan qaadi kartid dhaqankaasi dhaqan nool ma ahe walaalo dhig waxa ka heli kartay iyo waxa ka cuni kartay ba ka cuntay 9 sanaad Soomaaliya xukuntay intii alla ku calfay qaadatay cid ka badsatayna ma jirtee walaalo dhig oo kursigan dhig oo codkan dhig oo dastuurka ammaansi oo ogtahay inuu ku shaqeynay waxaad adigu samaysatay inuu ku shaqeynay waad ogtahay dhaaf kii hore aad adigu ansixisay heshiiskana lagu ahaa ilaa 12 kiina la watay 2012 la watay baa heshiis lagu yahay doorashada gal alafkaaga ka qaado iska dhaaf iimaan la'aanta mawjada foolxumada halkaa ka dhacday waxay wasakhaysay dabaaldegi aan maanta ku dabaaldegi lahayn diyaaradaha iyo hoggaanka iyo ciidanka iyo horumarka iyo waxa la inala damacsan yahay saan ugu dabaaldegi lahayn
oo halkaa qaylo afka lagu shubtay oo yuhuuddii iyo qaylinayaan afka furay oo escalation ay leeyihiin diyaaradahan midda kale su-aalaha la keenay waxaa ka mid ah waa temporary waxaas waa iska diplomatic message xogtaan helayno oo aan xaqiijinay mawjeeda oo aanu ka hubinay dhanka wasaaradda difaaca turkiga diyaaradahan soomaaliya iska leh and they are here to stay dalka difaaciisa iyo waxay u yimaadeen hawada ilaalinteeda ciddii xadgudub wataa iyada alarmid ah oo la rabaa inay alarmiga isku daarto tiraahdo war meeshii difaac baa ka dhacay iskaga jooga wadankuna insha allahu tacaala waa ka baxayaa inahaasaan oranayaa xasanow walaalow ummadana ka xishood dalkana u tur war dalka u tur war wuxuuna lagugu yimaadee doorasho